aan ku bilownay sidii hordhaca warkaba aad ku maqlayseen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri ayaa kulan la qaatay safiirada Qatar iyo Turkiga iyo waliba hay'adaha ammaanka qaranka Soomaaliya warkan Maxamed Dhaqane gacmo dheere ayaa soo koobay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa uga yeeray hay'adda laamaha amniga qaranka iyo safiirada dalalka Qatar iyo Turkiga ra'iisul wasaare Khayri ayaa ka dhigaystay laamaha amniga xaaladda wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo ay dhisayaan shirkad laga leeyahay Turkiga waxaana intaas kadib ra'iisul wasaare ku amray laamaha amniga in ay ka shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka wadada si loo fuliyo dhismaha wadadaasi waxaana dhinaca kale safiirada Qatar iyo Turkiga u sheegeen ra'iisul wasaaraha inay ku dadaalayaan fulinta mashruuca dhabahaasi taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sariye Gaase Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sharaxay kulanka uu ra'iisul wasaare Khayri shir gudoominayay oo lagu hadlayay xaaladda ammaanka dhabaha Muqdisho iyo Afgooye saaka ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa soo yaaray dhammaan hay'adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada Afgooye iyo Xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dawladda walaalaha ee Turkiga ah sidii loo dhameystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas waxa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadawga ummadda Soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo wadooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarreynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliiska militariga nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortagayaan lana shaqeynayaan dardargelinta wadadaas arrintaas ayaa aad looga hadlay loo filaanqeeyay waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhameystirka wadadaas oo hadda gabagaba meel muddada aan ka badnayn 2 toddobaad oo isku xigta waxa qarax lagu weeraray shaqaalaha Turkiga ee dhisayay dhabaha si loogu hakiyo mashruuca balse dawladda Soomaaliya Turkiga Qatar ayaa sheegay inaysan hakan doonin weeraradaasi dhismaha wadada Afgooye ee Muqdisho u dhaxaysa Maxamuud Dhaqane Nuur gacmo dheere TV caalamiga SBS TV Muqdisho